xogayaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka wadani inta jaamac xirsigan iyo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka hadashay waxqabadka iyo miisaaniyadda ururka haweenka NAW iyadoo ka warrantay in miisaaniyaddaas ay sheegeen ay jiraan dad tiro badan oo aan waxba loogu qaban isla markaana ku dhibaataysan gobolada ay sheegeen iyadoo ka hadlaysana waxay tiri sida tan maanta inaan shir jaraa'idkaygan kaga hadlo arrin yar oo kooban runtii arrintaas oo ah waxqabadkii haweenka qaranka ee NAW ay soo bandhigeen runtii waan hambalyeynaya intii wax qabatay balse waxaan doonayaa inaan kaga hadlo hal qodob halka qodob oo ah cadadka miisaaniyadda ama budgetka ay leeyihiin haweenka qaranku iyo qaabkii ay u soo bandhigtay inantii xisaabiyaha ka ahayd haweenka qaranka NAW in aan bal fahansiiyo haweenka iyo bulshada reer Somaliland iyo xukuumadda laftigeedu bal inay isdhageysato taas oo aan uga jeedo waxay sheegtay inantii xisaabiyaha haweenka qaranka NAW ee ka hadlaysay barnaamijkii shahaadada lagu guddoonsiinayay marwada in ay miisaaniyadda haweenka qaranku ahayd maalintii xisbiga talada haya ee kulmiye xukuumaddiisa mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu hogaaminayay ay xukunka la wareegtay waxaa baaqi ah 584 milyan baa baaqi ah 584 milyan ee baaqiga haddii gobolka Maroodijeex oo magaalo madaxdiiya lagaba dhigo inuu 84 milyan isaga ku baxo oo ay iyaga intaasi ku baxdo sanadkii 500 milyan ayaa taagan xisaabta taagan 580 milyan halkay ku maqan yihiin waa su'aasha aan weydiinayo haweenka qaranka 500 ma akoonka loo kordhiyay miisaaniyad kordhintu gabigeeduba waa qarash ee maaha dhaqaale dalka soo galaya waa wax la luminayo qaabkii loogu talagalay ee sax ahaa haddii aanay ahayn shakhsi baa lunsada marka 500 milyan ee miisaaniyadda wasiirku uu iminka ka dhigay ee uu gaarsiiyay 500 qaabkee baa loo maamulaa ee milyan haweenku waxay leeyihiin baahiyaad fara badan saribadaha haweenka fadhiya hortooda iyo wax iibiya bilaa xamaamo weeyaan siday u fadhiisteen saaka ayay ku rawaxaan 6 maqribnimo iyagoo halkoodii ka kicin wada kaliya xanuun bay qabaan xanuuno fara badan oo saameynaya inay khashin saar jirkoodu sameeyo ayay leeyihiin maxaa wax loogaga qaban waay ee baahiyaadkooda maadaama lagu qaaday magaca haweenka qaranka miyaanay haweenka qaranka in wax loogu qabto ahayn ma akoonka loo kordhiyay mise shakhsi gooniye waxaan leeyahay hanti dhowrku dhagihiisu ha shaqeeyaan ama indhihiisu ha shaqeeyaan haddii aanu dhagahana ka shaqaynayn indhahana ka shaqaynayn aqoon ahaanna u shaqaynayn miyaa laga saaray hay'adda hanti dhowrka oo jamhuuriyadda kamaba shaqayso macaynkaasaa macnu markuu qof meel istaagaya uu leeyahay 100 milyan baa la iigu talagalay inaan sanadkii isticmaalo waxaan isticmaalay 30 milyan ee uu caynkaa isagu u qeexayo maxay tahay macnaheedu waa wax la xalaashaday baan odhan karaa marka waxaan leeyahay arrintaas bal ha cadeeyaan haweenka qaranku 500 milyan ma akoonkay ku jirtaa ma dad kala lagu caawiyaa ma siyaabo kala loo isticmaala bal ha cadeeyaan iyagoo ha is cadeeyaan waa Maxamed Cali Axmed Maxamed Kaabe wararka telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV magaalada Burco.